dhammaan marti sharafta mansab walba ay ku fadhida aad iyo aad u mahadsantihiin qodb ma ku soo talgelin laakiin laba erayaa rabaa inaan ka jeediyo halkan waxaa aad iyo aad ugu hambalyeynaa madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo soo magacaabay wasiiro dhalinyaro ah aqoon-yahan ah karti leh oo aaminsanaa aad inay ugu shaqayn karaan dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya madaxweynaha waxa ku leeyahay mudane Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagareen aad iyo aad ayaad u mahadsantahay sababtoo ah koonfur galbeed mugdi badan iyo dhibaato iyo cariiri badan ay soo martay way u baahneed dad dhalinyaro oo iftiin u bixiyay mar labaad iyo mar saddexaad waa ku mahad celinayaa tan kale mar walba waxaa lagu soo celceliyaa waddada baydhabo ilaa afgooy waddada baydhabo ilaa afgooy waxay rabtaa dad isku xiran oo muwaafaq ah hal qof far kaligeed fool ma dhaqda Soomaali taasi kuma mahada waxaa la rabaa anaga dhan inaan isku xiranno xildhibaanada dowladda dhexe iyo koonfur galbeed madaxweynuhu dhammaan anaga dhan inaan isku xiranno wax allaale wixii dowladda ay rabta anaga inaan ka shaqeynaa nagal rabaa dowladda koonfur galbeed waxay u baahan tahay garab waa dowlad cusub cunug markuu dhasho waa gurgurtaa waa dhacdhacaa kadib markaasuu soconaa marka waxaa la rabaa anaga gacmaha inaan isqabsano dowladdeena koonfur galbeed waxaa waaye asalkeeni waaye gacmaha inaan isqabsano madaxweyneyn aan garab istaagno dhammaanteena in madaxweynaha garabkiisa istaagnaa nagal rabaa wax walba waa qabsan karnaa markaas laakiin haddii ay noqoto qof walba baha iska socoto dhibaato badan ayaa la mari doonaa waa la ogyahay dhibaatadii lasoo maray koonfur galbeed marka ani waa mar labaad iyo mar saddexaad marow khudbadii inaan ku dheeraado aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed aniga waxaa ahay senatarkii ka soo jeeday koonfur galbeed madaxweyne waa mahadsan tahay garabkaagaan taagannahay waxaan si gaar ah aan ugu mahadinayaa isla markaasna aan rabaa inaan taariikhdiisa yaro kooban aan sheego senatarka wuxuu ka mid ahaa dadkii soo aasaasay maamul goboleedka koonfur galbeed waxaan isla soo marnay xil wasiiro waxaan ahayn wasiiradii ugu horreysay ee golihii wasiiradii ugu horreeyay koonfur galbeed markii la magacaabay senatarka waxaan haddana nasiib u wada yeelan inaan ka mid noqono baarlamaankii koowaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya markii la soo aasaasay xildhibaanadii ugu horreeyay inaan ka mid noqono waxaan kaloo nasiib u yeeshay inaan noqdo guddoonkiisii baarlamaanka isla markaas waxaan kaloo nasiib aan u yeelanay senatarka inuu noqdo senataradii ugu horreysay aan ka doorano magaalada baydhabo ayagoo wakiil nooga ah dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya runtii senatar Xuseen Cali Xaaji muddadan inaan u sheego suu sheegay guddoomiyaha senatar Xuseen runtii senatar Xuseen taariikhdaas fiican uu leeyahay laakiin aniga inta aan kala bilaabay oo iska aragnay waqtigii yaraa ee aan ku jirnay arrimaha koonfur galbeed waxaa jiray 8 senatar oo reer koonfur galbeed wuxuu ahaa senatarka kaliya oon hal maalin baydhabo ka maqnaan wixii dhacayay wixii jiray isbedelkii doorashadii senatarka kaliya oo habeenii maalin u taagnaaba runtii waa taariikh fiican waa nin taariikh fiican leh oo deegaankiisa iyo dalkiisa ka naxay waa laga yaabaa kuwa kale inay jeclaayaan inay yimaadaan laakiin daruufo kale ay haysay waxyaalaha nala weydiinayay ka mid ahayd maalintii doorashada wuu joogay senatarada asaa ka joogay intii ka horreysay oo la shaqaynayana waa joogay senatar Xuseen aad iyo aad u mahadsan yahay koonfur galbeed wixii ay kugu lahayd waa fulisay haddana ka badan aan kaa filaynaa waxaan kaloo u mahad celinayaa saaxiibkay xildhibaan Xasan Cabdinuur oo intaan la joogay isagana shaqadii ugu badnayd qabtay waajibaadkiisii baarlamaanka muhiimadda kala saaray tan dhismaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo habeenii maalin u taagnaa isagana hambalyo aad iyo aad u mahadsan tahay kulligeen waa isu hambalyeynaynaa waxaan rajaynaynaa horu socod midnimo wadajir guul iyo barwaaqo ay dadka reer koonfur galbeed gaaraan aad iyo aad u mahadsantihiin casho wanaagsan waxaan noo bilaaban doono farxaddii iyo heesihii janaawkeyna aad ay u mahadsan yihiin